qof kastoo celebrate ah ama qof kastoo isticmaala social media horta waxa wax ku yahay waa dadkiisa. bal waxaan soo socda ila arka zakiyare anaa ku cunaade hore i gadaalbo ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قالي قاس سود وهذا فيديو عصبت لنا عصبت سودو هذا هو اللي جوتنا عادي هذا ما استسيد قروح بدن سبسكرايب كإيسي سي وأنتي عادي هذا يدير جلسين وأنا يكون ما دعلني سيد قروح بدن سبسكرايب كإيسي أنتي سوري أنتي وصبرتي وهاي اللي هاي ويلكم سودو هذا عادي هذا ما استين سيد قروح بدن عمك سيجو حرنتين كل اللي جونا عليه عادي هذا ما استين and guys وحروا إن reaction كبريو فيديو هذا عن أركي لكن وحن في له وقت هراء إنه سوقي يوتيوب كإيميل عكله لكن هذا أركي قف كستو celebrate أما قف كستو استعمال السوشيال ميديا هرت وحكوية هاي وادب كيسة and ضدك ودعوة أي وحكوية هاي هدي أنا ضدك إيش كدعوان لهين أما إيش سعبيت كسيل لهين أما إيش سبسكرايب كسيل لهين أما إيش مركز بيو كتغير لهين أما أدي هيسا سوق عدد الاستعمال لهين دي wax ma aan lahayd cid ku garan lahayna ma jirto marka maxaa wax ku tahay waxa wax ku tahay dadkan ku daawada oo markasta ku dhiirigeliya hadii lacala aad hees soo qaadid adiga balse ay cid daawata aysan jirin qof ku daawana aysan jirin cid heesaaga TikTok soo gelinaysa aysan jirin yaa ku yaqaan markaas cid ku taqaana ma leh laakiin dadka ku dhiirigelinaya oo heestada wax ka dhigaya oo markasta adiga wax ka dhigaya waa dadka idinka dadkan dadka daawada عادي هذا مواستين سيدا مركا موضوع عن كان لأنه واحد تاي ما دام أديك ذاتك كودي رجلية أو مركز كدعوة أو مركز أديك كسبوت جرية هدي أدو حكش تكور أما أديك أفلقات أوجيشتي دباتي ما نسا أنا كمان أنت إذنك يكمل دباتين كرو هذا هو يكمل لي كرو حتى هدو قفهم كسو إذيك سو نحبه أو أنا أفلقات دي ما أهن إنا أفلقات أن أسجن أفلقات ديناي وهي أفلقات نوع حكوا لا ويا إذا قدرتين وحاتين دت آد وقلب في عنا مركز سومالي ده نسكت من معها أوكي حدي أوصل لو موضوع أي وهواي ما أنت أي كان شرم بوي وفنان أو تقانين أنت بدن سومالي أي تقانين وفنانين ده حد وقت ده ضب مصلحيات السومالي ده قف الكلية هيستعمل كرو هسيس أي ملك سكنداريين هدي أعلى المقاحي بابور هدي سوشيال ميديا على أي سوشيال ميديا تيك توك انستغرام ميل كاستا waxaa isticmaala bulsho isaga jecel waxaan rabaa inaan markaa igi sheego waxaan arkay alfanaan Sharma Boy waa horta fanaan la jecel yahay waaye waa fanaankii intii dambe ee hadda bariyahan dambe aad iyo aad u soo kacay dad badan ay jecel yihiin dhalinyaro badan ay ku xiran yihiin heesiisana aad iyo aad loola dhaco laakiin Sharma Boy ayaa wuxuu sameeyay aflagaada ayuu wuxuu geystay qof kamida taageeriisa ama qof kamida bulshada daawata sababtoo ah marka ay celebrate tahay ama dadku ku xiran yihiin qof xun ka weynaysid qof adiga ku dhibaateeya ama waxan ku dhaha ama waxan ku soo qoro horta ma ka weynaysid balse maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay qofkaas adiga ku dhibaateynaya inaad ku ilowdi inta kale adiga ku daawanaysa fiican waxa ka sii badan ama ka badan aad iyo aad uga badan inta qalbiga fiican leh waxa ku jira kumnaan Soomaali oo qalbi fiican hadduu hal qof xumaado kulligood ma wada xumaa okay marka mawduuceena haddii aan soo laabto Sharma Boy oo live ku jira waxaan jeclahay inuu ku jiro Facebook ayaa waxa uu arkay qoraaladii loo soo qorayay erey dhibay aan dhigi karaa ereygaas buu aad uga xanaaqay haddana bal waxaan soo socda ila arka zakiyare anaa ku cunaade hore i gadaalbo maxaad samayn kartaa brada abtooy waayo oo ku dhahaa hooyadaa maa la cabaane laxda ku dhashoos waxaan fiirinayo okay qofkaas uu soo aflagaadeenayo ma ahan waa taageeriisi laakiin taageeraha dad xun oo ku jiri karaan dad fiican oo ku jiri karaan marka adiga aad tahay qof shacbiyad badan haysta ama aad tahay qof social media ku jira ama aad tahay qof fanaan ama aad tahay qof bulshada madadaaliya ama u soo heesa waxaad arkaysaa waxyaalo badan caqabado kaaga imaan kara balse inaad u jawaabtid ma ahan
hadda Sharma Boy wuxuu ku hadlay cunug yar oo meesha wax ka soo qoray ayuu u jawaabay wuxuuna kula hadlay hadallo aan munaasab ahayn ama hadallo aan u fiicnayn isaga sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo sumcadiisa inaba sababtoo ah wuxuu yahay hadda uu wataa teetalka uu watana teetal kale ma aha waa teetal fanaannimo marka ay fanaan tahay waxaad fanaan u tahay ummadda dhan ama bulshada Soomaaliyeed dhan way ku dhageysataa marka magacaas fanaan markii lagu dhahayo si ciyaar ma lagu bixinayo qof kastan fanaan iskama dhaho laakiin waxa la dhahaa qofka u qalma inuu fanka ku soo biiro wax cadna muujiyo that's why al dhahaa fanaan okay وربي بوق وهذا فرام انت انه فرام انت ما dadka shacabka joosan والشعب والسلامة يا وحي بوق انت ما بوق ايضا فرام انت برادا اساسا دي انت بعدين ما هنا هذا لايف كان يقول جستا ما يقول جستا كم كذا ساعة dadka ayaga u taalaay iqriina anaa kuwas adi intaas ayay ahayd marka bal fiiri ilaah baa kugu dhaarshay iqriina hatta waa gabar ku afalgaadeenayo waxa kaloo jirta qofka adiga ada social media soo galay haddana adoo ah fanaan inaad usaas u aflagaadeysid dhalinyarta ama dadka ku daawada ama shacabka ku daawada munaasab ma aha baraada waxaan leeyahay aan ku leeyahay sumcadaada iyo sharaftaada ha ku ciyaarin hadda hadallada kaa soo baxay aan inaba caadi ahayn aan lagu talin gelin qof fanaan ah oo bulshadiisaas ula dhaqmaayo sababtoo ah adigu waxaa tahay qof fanaan ah waxaa ku daawada waa iyaga waxa wax ku tahay waa iyaga wax markaas kusoo budgareeya waa iyaga laakiin kulligood ma wada xuma hal qof hadduu xumaado ma ahan inaad saas u caydantid waana wax laga xumaado waana wax adiga samcadaada iyo sharaftaada dilayaan talo ku siiyey walaalkay Sharma Boy oo aan dhahayo ru'aantii waxa adigu wax ku tahay wax kale ma waa bulshada ku soo saartay bulshada magacan ku siisay bulshada maartay heerka ku soo gaarsiisay laakiin haddii adiga aad markasta qof soo jawaabo ama qofkii hadal xun ku dhaha ma ku dhahayo dadku waa wada wanaagsan yihiin laakiin waxa laga helayaa dad xun oo ku dhex jira kumnaankan fiican hal qof oo xun ma laga weynaayo balse halka qof ee xun inuu aad ku sii mashquulshid ma noqon karto waa laga fiican yahay waxaa badan inta adiga ku taageerta waxaa badan inta adiga heesaaga markasta dhageysata oo TikTok adiga aad ahaato haddii social media kale ahaato intaba keenta ayaa ka sii badan marka adiga ha u joojin hal qof waxaan kugula talin lahaa haddaad aragtid qof noocana ama saas u caytamaya weligaa allaha waxaad ku soo matiqaadataa inaad adiga qofkan ka sarreysa ku soo gaari waayo ama iska dhaaftid oo hadalkiisa aad wax ka soo qaadid taas ayaa aad iyo aad uga fiican marka haddaad igu cusub tahayna soo dhawow channelka waa channelkiini subscribe-ka dhac ku sii haddaad ii saarteen hore igu saartana aad iyo aad u mahadsan tahay sida markasta dhiirigelinta leh aad igu saartiin waxaan iga leeyahay malaa'ig kay soo salaanto aadaan iga salaama aadaan iga jeclahay waxaad tihiin like familkayga runta igala hadlaya waxaad tihiin like familkayga marka waxaan iga leeyahay sharaf iyo ciso ku noolaada aad iyo aad u mahadsan tihiin intaas iyo nabad